له مقارنة قيبه بالشدة أوردن ككوبان وحن نقول سلام يا سلامة إسلامك أنا جو كهر ليا أفكي صاحب كي فرحان آذن هيبه فرحان آذن هيبه ودلني يراده رجال وين لقد حكي كرو مستقبل كسومالان قولهن أن مثلها هاي أنت جوكتها waxay ka wakiil tahay inta maqan waa gole lagu leesku garab taagayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo sida geesinimada leh ee uu go'aanka u qaatay in dhalinyaradu ku soo biirto siyaasadda saaxiibkay Farxaan wuxuu hami geliyay magacaabistiisaasi waxay hami gelinaysaa dhalinyarada Soomaaliland inta wax baranaysa inta aragtida leh inta wadaniyada leh wuxuu hordhac u yahay baan isleeyahay hoggaanka cusub ee ay Soomaaliland rajaynayso ay ka rajaynayso guulaha mustaqbalka dhow insha Allah ilaahay inagu inagu asturi doono halgankii hore ee xoreynta ee madaxweynuhu hogaaminayay isaga laftigiisa waxaan isleeyahay Soomaaliland waxa xoreeyay inama yareer oo dhiiran oo qori aakaya kala hortagaya kaaraha iyo diyaaradda oo ilaahay uu karaamo siiyay Farxaan maanta waxaan isleeyahay waa ragga hore ee geesiyaasha ah ee taariikhdeenu ay xusto mid kamid ah laakiin ka qayb qaadan doona dhisidda ummadeena waxaan halkan kulli anigu ka cadeynaya oo ka muujinaya dareenkayga aan ogahay inay dad badan oo reer Soomaaliland oo aanay hayb qaybin ay kulmiso wadaniyadu iyo iimaanka iyo mabaadi'du ay ku midaysan tahay Farxaan wuxuu ka mid yahay dadka qiimaha ku dhaxlay bulshada mar waa ganacsade khibrad ku leh ganacsiga mar waa siyaasadda u dhuun daloola mar waa aqoon-yahan mar waa nin dhalinyaro ah oo dhalinyarada dhexdeeda sharaf iyo magac ku dhaxlay waxaan isleeyahay waxay noo furaysaa tani waji cusub oo siyaasadda Soomaaliland rajo weyn gelin doona mustaqbalka waxaan leeyahay dhalinyaradu hay isgarab taagto dhalinyarada Farxaan oo kala ah hay isgarab taagto xukuumadeena aynu madaxweynaha iyo maamulkaba tusno inaynu kalsooni ku qabno oo aynu xilkaynu u idmanay aynu ku iimaan qabno kana rajo qabno waxaan isleeyahay maanta halkan kuma soo wada koobi karo laakiin aniga kolley caatifad baa igu jirta kolley rajo badan baa aan saaxiibkay iyo dhalinyarada kale ee madaxweynuhu magacaabay aan magaranaysaa ka dhex arkayaa waan u ducaynayaa waxaan leeyahay garabkiina u nahay nagu tashada garab iyo gaashaan baan idin noqonaynaa waan idin dhiiri gelinaynaa dee kolley waxa weeye raguna iga dambeeyaanoo nin waliba intiisa uu ku darso